ورحمة الله وبركاته وإبراهيم مهدرر وإذن كجسود قدبنا برنامج كان حرونت أوجال ما أنتوا حكى هذلنا مس أركتي أنت هذا أصله وحير فيسبوك كفيري أما يوتيوب كهالفيديو كفيري دور دقيقة كدبنا دور ساعات كبعدي أنت يسهل ما أنت هذا كل حجرتي بد هذا نقول تلقى المركور إنك قشت محكينا يسويهاس سوشيال ميديا وحال سكور هذا هو فيسبوك تويتر انستغرام سناب شات يوتيوب يو كل هالمان وحال شيء جاية ضدك ilmaha yaryar oo teenagers-ka statistics-ka soo aruurinay inay cunug si teenagers-ku waxa way 13 ilaa 19 dadka u dhaxeeyo inay maalintii galiyaan waqti ilaa 9 saacadood inay maalintii ku jiraan social media kala duwan dadka caadiga ah adults-ka wax la yiraahdo oo shaqeeyo wax barto family kale waxay maalintii galiyaan social media laba saac ilaa 4 saacadood oo waqti aad u badan marka maxay ku dhacday maxaana keenay dad badan way ka qoomamayaan maalin walba dhowr saacadood markuu ku jiro maalin walba wuxuu iska ballan qaadaa inuu joojin doono laakiin wixii muuqata qofkii ma joojin karo wuxuu taagan yahay qofkii meel yani helpless ah waxba lagu sameeyay laakiin ma oga wax lagu sameeyay marka maanta waxa ku qaada dhigaynaa barnaamijkan waxa keenay dareenkaas ah inay silmaamtid oo social media isku dhaxilmaamtid oo ku dhaxluntid maxaa keenay ma wax by design ah ba oo wax ay ugu tala galeen miya company social media ama wax ku dhacay accident ama kama cilmi baarista sameeyna waxa ku ogaanay inay tahay kas looguna tala galay in lagu haayo meesha inta ugu badan ee lagu hayn karo sababtoo ma arinta koowaad company social media Facebook Instagram kulli waxay wax ka sameeyaan ama lacag ka sameeyaan marka hore waa free waxa lacag ma bixisid internet kaliya u baahan tahay iyo telefoon inaad ku soo download gareysid social media marka free tahay maxaa ka soo galaya ayaga adiga marka waxa tahay badacada la gaday service-ka markuu free yahay you are the product adiga lagu gadaya yaa laga gadaya maxaana laga gadaya waxa laga gadaya waxa waaye advertisers iyo marketers dadka xayisiyo ama suuqgeynta sameeyaan ayaa waxa laga gadaya attention-kaaga iyo datadaada haddii aad aragtay dabcan waxa arkaysaa laba qof oo is ag fadhiyo waxa laga yaabaa telefoon wada haysto in qofkan aadka macnaha xayisiinta la tusaayo ay ka duwan tahay qofkan kale xayisiinta la tusaayo labada qofna isku meel ay fadhiyaan xayisiintan waa targeted advertisement macnaha information-ki iyo wixii aad siisay ayaa wax lagu target gareynaya wax la isleeyahay waa jeceshahay taas way ka duwan tahay mainstream marketing-ka marka ka hadlayno ama billboard meel lagu dhajiyay tabeelo meel lagu dhajiyay dadka dhan oo maraya cidna gooni uma target gareynayso ama uma abaarayso cid gooniyo waa dadkaas oo dhan arkaayo way ka soconayaan TV-ga dad daawanaysid barnaamij TV ku jiro waxa laga yaabaa in dadka dhan oo TV-ga daawanaya inay wada arkaan xayisiintaas radio-ga sidoo kale newspaper-ka sidoo kale laakiin social media waxay ugu duwan tahay waxa waaye information-ka adiga aad gelinaysid internet-ka ha ahaato maxaa la dhahaa datada sanadka jirtid waxaa jeceshahay iyo qaabka oo la tacaamulaysid waxyaabaha la gareysay waxa share gareysay
waxyaabaha Google ku search gareysay information kaas iyo data taas oo dhan ayaa inta la isku aruuriyo ayaa waxa lagu tusayaa advertisement ama waxa la yiraahdaa xayeysiin ku haboon waxaas marka wax imaanaysa marka wixii maadaama ay jeceshahay wixii qof walba wax buu xiiseeyaa ninka sports ka daawado sports ma dhamaanayo ciyaar u dhiibaa qofku uu hilmaamaya waqtigiisa inta ku lumaya wax marka la ciyaarayo waxa waaye human psychology qofka maskaxdiisa ayaa waxay la ciyaarayaan manipulation wax la dhaho ay ku sameynayaan maxaa la yiraahdaa social media giants kambaniyada dhan oo social media isticmaalo taas marka waxay keenaysaa in qofkii isku hilmaamo meesha uu isaga jiro arinta kale waxa waaye in telefonka aan wadano oo waxa laga yaabaa qofka inuu ka tago waxyaabaha kale oo dhan inuu ka tagi karo guriga markuu ka baxayo laakiin telefonka uu ka tagi karin waxyaabo ka muhiimsan telefonka inuu ka tagi karo sida ID cardkiisa oo kale iyo waxyaabo kale oo muhiim laakiin qofka inuu telefonka ka tagi karin maxaa telefonka waxa maanta waxa noloshii oo dhan ayaa ku hareeraysan oo wax walba ku jiro sawirkii kaamirada ayaa ku jirto magaciisa ku jiro wax walba ku jiro telefonka marka telefonka gacanta uu ku hayo qofka wuxuu sii tagayaa maxaa la dhahaa social media isticmaalaya ayadana waxay keenaysaa qofka inuu aad u isticmaalo wax yar oo caajis ah ama hadduu dareemo ama waqti yar hadduu helo inuu iska galo waqtiga ku lumiyo ama isku maaweeliyo waxa kaloo keenayo in isla wada shaqeeyaan ecosystem macna haddii aad isticmaashid Facebook oo kale Facebook wuxuu leeyahay Instagram wuxuu kaloo leeyahay Facebooka maxaa la yiraahdaa WhatsAppka marka in aad Facebook waxa ku isticmaashay ama waxa ku sameysay in hal ecosystem ku wada jiraan oo Instagram-kana uu ogaan karo wixii aad ku sameysay oo across sharing ina sameyn kartid wax inta Facebook wax soo dhigtay isla markiina Instagram aad ku share gareyn kartid iyo Google-ka wuxuu kaloo leeyahay YouTube waxaas kale Google marka wax laga yaabaa inaad waxa search gareysay oo let's say waxa tiri tusaale waxba internet ku search gareysay let's say waxaan rabaa inaad tagtid meel fulaan wadan ama magaaladaas Mombasa oo kale bas maalintii oo dhan waxa arkaysaa hoteelada Mombasa ku yaala lagu xayeysiinayaa waxa arkaysaa spa-ga ku yaalo magaciisa ku yaalo wixii marka wax smart ah oo machine learning ah يعني machine computer كي wuxuu baranayaa information kaaga data wax walba aad gelisid iyo wax walba aad maxaa la yiraahdaa meesha gelisid computer meel baa lagu store gareynayaa ka bacdi waxa lagu tusinayaa almost accurate suggestions macnaha wax u dhow in aad maxaa la yiraahdaa action ka qaadanaysid sida dollarka ama shilinka uu bixinayo qofka laga gadaayo attention kaaga iyo maxaa la yiraahdaa waqtigaada ugu soo noqdo as much as possible macnaha inta ugu badneed kaga soo noqdo $1 haduu gali inuu helo macnaha wixii uu dollarka investment ku sameeyay ninka marketerka waxa rabaa inaan idin la wadaago hal nin hadda ka hor ka mid ahaa milkiilayaasha Facebooka asaasayaasha Facebook oo la dhihi jiray Sam Parker oo hadda ka tagay ayaa wuxuu sheegayaa qaabka loo sameeyay social media iyo sababta ka dambeysay waxa soo koob gareynaa English ku sheegay ka bacdina waxa ku tarjumayaa af Soomaali wuxuu leeyahay the thought process that went into building these applications Facebook being the first of them was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible? فكرك يو يعني مركي لا ديساي فيسبوك
iyo maxaa la yiraahdaa social media wuxuu ahaa sideen ku heli karnaa inta ugu badan waqtigaada iyo attention-kaaga. And that means we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while, because someone liked or commented on a photo or a post or whatever, and that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you more likes and comments. Okay, sidee ku heli karnaa inta ugu badan attention-kaaga ayuu ku leeyahay. Waxa ku heli karnaa ayuu leeyahay inaan ku siino little dopamine. Dopamine-ka waxa waaye farxadda dareemaysid markuu qof like gareeyo postiga ama si share gareeyo ama comment gareeyo. Yani waxa jiro dareenka wada ogtihiin qofka markuu comment ku bixiyo waxa soo dhigtay ama like ku qabto ama yani waxa dareemaysaa kiimiko maskaxda soo daynaya oo dopamine la yiraahdo. Markaas waxa si sameynaysaa marka mar walba inaad wax badan soo gelisid. dadku waxay jecel yihiin ogaanaysaa waa sii wadaysaa sidaas waxa sii gelinaysaa more content postiye badan soo gelinaysaa waa sii wadaysaa. waxa uu leeyahay marka it's a social validation feedback loop, exactly like the kind of a thing that a hacker like myself would come with, because you are exploiting a vulnerability in human psychology. معناها حلو وقاب social validation معناها سيدي مركي قفكم مركو بنانك جوجو هدي لا أمانو دتك سيدي أوضح معيان مركو أركو وحو سمايو هدي لا عنانتو سكداينا أيو هدي لا أمانو وحسي وضعيو أو أسوق جورتي محلي هذا دون كده أنا هذا ومركا تسوق اللي سيد الله يوروب جوجو مثلا أفريقيا جوجو على جوا قف قارد كله جوجو دون إنه like who sameeyo comment who sameeyo social validation marka validation ka soo rabta in maxaa la yiraahdaa and exactly the kind of a thing wuxuu leeyahay marka waa wixii uu sameyn lahaa qof hacker aniga camal macnaha hacking wuxuu shaqeeyaa marka waxa gareynaysid waxa la raadiyaa wixii raadiyaan hackerada systemka waxay ka dhex raadiyaan cilad ama maxaa la yiraahdaa meel banaan ee ka galaan systemka sida qofka tuuga tusaale wuxuu raadinayaa albaabka inuu furan yahay ama inuu jaban yahay ama sidoo yani qaab nooca sidoo u galo meesha ama uu vulnerability meel weakness weeraro ayuu raadinaa. marka wuxuu leeyahay anaga waxaan u sameeynaa sidaan yani waxaan raadinaynaa weakness ama vulnerability meel maskaxda ka galo in human psychology. ومدان وكت وسيدي سو كت كرينايا سام باكر انترفيو لا قاضي واختيار كهر وحوليه marka soo gabagabeynayna the inventors creators it's me, it's Mark Zuckerberg, it's Kevin Systrom of Instagram, it's all of these people understood this consciously and we did it anyway. wuxuu yiri asaasayaasha ama maxaa la yiraahdaa hal abuurada waxa way aniga Mark Zuckerberg madaxa Facebook wuxuu leeyahay Kevin Systrom ninkan Instagram iskale waa anagoo dhan kulligeena waa fahanay macnaha waa ogeyn oo waa la soconay ka soo sameynay and we did it anyway waana iska sameynay macnaha anagoo og inaan ku sameynayno galeyno maxaa la yiraahdaa vulnerability-ga qofka maxaa la yiraahdaa maskaxdiisa waa sameynay anagu marka maanta barnaamijkeena wuxuu ahaa inaan ka jawaabno su'aashii ahayd maxaa ugu dhaxloontaa maxaa la yiraahdaa social media Facebook adiga oo aan ugu talagelin waxa weeye waxa ugu talagalay asaasayaashii inaan ku dhaxloontid waxana waay in lagu hayo inta ugu badan ee awoodaan waqtigaada iyo attention-kaagana laga gado dadka waxaysiiyo iyo maxaa la yiraahdaa dadka wax soo geeyo barnaamijyada xigo waxaan kaga jawaabi doonaa sida xalka iyo sidee uga hortagi karnaa faa'iidooyinka aan ka heli karno sidee faa'iidada ugu badan kaga qaadan karnaa maxaa la yiraahdaa xalkana muxuu yahay waa mahadsantii.